hagaag wax walba si dhaqso ay isu bedelayaan doolarka Mareykanka horaantii bishii ina dhaaftay waxaan u aragnaa laba dhacdo oo waaweyn kuwaasoo gebi ahaanba bedelaya mustaqbalka adduunkeena. dhacdada ugu horeysa waxay ahayd isbahaysiga dhaqaalaha ku dhisan ee BRICS oo ku dhawaaqay nidaam cusub oo lacag bixin ah kaasi oo dhab ahaantii caqabad ku noqon doono heerka doolarka Mareykanka ee wax kala iibsiga caalamiga ah. balse waxaa ka sii weyn dhawaaqi uu ka nahay Mareykanka ee ku saabsanaa in 50 sano kadib heshiiskii Mareykanka iyo Sacuudiga ee ahaa in shidaalka lagu dhoofiyo doolarka Mareykanka uu si rasmi ah u dhamaaday 9 Juun 2024. waa in taariikhdaas meel ku qorataan. bal qiyaas waxa dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga uu go'aansaday in aanu dib u cusboonaysiin wada shaqeyntii Sacuudiga uu la lahaa Mareykanka. taa beddelkeedana wuxuu yiri waxaanu u furi doonaa ganacsiga saliidda dalal iyo lacag kale oo faa'iido u leh Sacuudiga. Rumaystatani waxay dhabar jab weyn ku tahay maqaamka doolarka Mareykanka oo ahaa lacagta kaydka adduunka 50 sano la soo dhaafay. dowladda Mareykanka waxay amartay in saliidda lagu iibiyo kaliya doolarka Mareykanka taasoo sare u qaaday heerka doolarka inuu noqdo lacagta kaydka adduunka. run ahaantii waxay ahayd mid ka mid ah go'aanadii ugu faa'iidada badnaa ee dowladda Mareykanka ee weligeed samayso. laakiin dunida Mareykanka ka ahaa super power-ka ayaa si rasmi ah u dhamaatay horaantii bishii aynu soo dhaafnay ee June